saakay sharaf ay noo tahay inaan mar kale halkaan isku imaano annagoo ka hadlayna dib u eegista hannaanka dib u eegista dib u heshiisiinta qaran oo horey u jiray si uu la jaan qaado marxaladda cusub ee dalku marayo runtii waxaan horey isugu nimid annagoo ka hadlayna dawladaha hoose dhismahooda waxaan horey isugu nimid barnaamijka xasilinta haddana waxaan joognaa reconciliationka dib u eegistiisii intuba ma kala maarmaan wayna isku xiran yihiin waxaan rabaa hadalka ma raba inaan dheereeyo laba maalmood ayaa la soo doodayay aragtiyo badan la aruuriyay NRF-ta hadda jira cilladaha iyo caqabadaha uu la soo gudboonaaday iyo guulihii laga gaaray iyo meesha loo dhaqaaqayo ambaasadorada sharafta leh iyo hay'adaha kala duwanna waxaan uga mahadcelinaynaa ka soo qaybgalkooda sida weyn uga soo qaybgaleen runtii waxaan rabnaa inaan helno nidaam dib u heshiisiin oo dhab ah oo ku yimid talada dadka taasoo ay ku soo aadayso waqti Soomaaliya cagta ay saartay wadadii nabadda iyo horumarka wasaaradahan oo dhanna partners bay ku yihiin hawshaas waa shaqo guud oo la wada leeyahay waxaan u fadhino hannaankan markii aan dhammayno in la daadajiyo wax dambe oo meel kale lagu haysanayo ma jirto marka arrintaas waa waqtigeedii baa ku soo aaday waana la joogaa